xaflad loogu dabaaldegayay munaasabada sanad guuradii labaad ee u dhamaatay haweenka qaranka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska ayaa waxa lagu qabtay magaalada tan London. xafladaasi ayaa waxa ka soo qayb galay haween aad u fara badan oo ka kala socday guud ahaan dalkan Ingiriiska. dadkii halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan: mudanaya murwooyin dadka meesha isugu yimi waa idin salaamaya. halkan waxaanu isugu nimi xafladda haweenka qaranka Soomaaliyeed ee sanad guuradii labaad ay u dhamaatay tii saddexaadna ay cagaa la sii galayso. gudoomiyaha qaranka Nadiifa Cali Horyar, gudoomiye ku-xigeenka gabdhaha qaranka Deeqa Giijo iyaduna caawa naga maqan oo cududaar ku maqan. anigoo ah Saara Khaatumo iyo qaran wees leedahay. gabdhaha Khaatumona waan ka tirsanahay, gabdhaha qarankana waan ka tirsanahay. aad ayaan ugu faraxsanahay marka ugu horeysa inaan ka soo qayb galo munaasabaddan lagu xusaayo sanad guuradii saddexaad haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK. anoo gaasira waxaan u hambalyeynaa gabdhaha qaranka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan kuwa UK ku nool, iyo gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed Nadiifo Cali oo isku keentay gabdhahan Soomaaliyeed meel kastay ay ka yimaadeen gobol state kastaba aan iskugu nimi qaranka Soomaaliyeed. waxaa naga go'an haddaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ku daalay inaan gacan siino oo aan garab siino dawladdeena Soomaaliyeed oo madaxweynaha u yahay Xasan Sheekh noolaato. Soomaaliha israacdo, Soomaaliha midowdo. waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed qabiil ma laha, xuduud ma laha. qabiilna waa kana soo qaxiyo halkaana keenay. marka qaranka inaan raacno oo aan qaranka taageernaa naga go'an. horta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan haweenka quruxda badan ee Soomaaliyeed ee u taagan midnimada Soomaaliyeed, ee u taagan qarannimada Soomaaliyeed, ee taagan inay ilmahooda iyo waaridkood iyo dawladooda sharafta laba ee wax u qabtaan. dhammaan hambalyo ayaan leeyahay. waxaan kaloo u hambalyeynaynaa madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, Prime Ministerkeena Cabdi Wali Sheekh, ra'iisul baarlamaanka Jawaari, wasiiradeena oo ugu horeysa wasiirada haweenka Khadiija Maxamuud Diiriye, gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Gaballe, gudoomiye ku-xigeenkeeda Canab Xasan oo leenahay Canabay noolow, dhammaan xildhibaanadeena, baarlamaankeena, dhammaan goboladeenna oo dhan, gobolka Banaadir gudoomiyaheena General Mungab oo leenahay hambalyo. Yusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.